Bismillahirrahmanirrahiim kulan wanaagsan nabad daawadayaal ku soo dhawaada wararka wadajir news qodobada ugu waaweyn ee aan faahfaahin doono waxaa ka mid ah Mahad Maxamed Salaad agaasimaha hay'adda NISA oo shacabka Muqdisho ugu hanjabay tilaabo shaleeta ah inuu ka qaadayo qofkii xiriir iyo garsoor u aada Al-Shabaab la taliyaha dhanka amniga Xasan Sheekh Maxamuud oo beeniyay guulo waaweyn oo ay sheegatay kooxda Al-Shabaab kuna faafisay baraha bulshada Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ballanqaad u sameeyay gudoomiyaha degmada Baxdo haddii degmadiisa guul ay ka soo hoyso dagaalka shacab ee ka dhanka Al-Shabaab iyo shir heerkiisu sareeyo oo u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo xalana ka furmay qodobadaas ayaan faahfaahin doonaa daawadayaal haddii laga helo eebaweyne daawadayaal inaga qayb qaata faafinta warkan idinka ku shargareynaya saaxiibadeen iyo baraha bulshada waadna ku mahadsantihiin haddii aad aragtid nagu reebteen qaybta commentiga ee hoose waa hagaag isku soo laabasho wanaagsan oo xiiso leh agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay in howlgallo qorsheysan oo hay'addu sameysay ciidankeeda lagu soo qabtay 10 qof oo lagu raad joogay qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa lagu sheegay in shakhsiyaadka la soo xiray ahaayeen kuwa ka tirsanaa Al-Shabaab isla markaana kala shaqeyn jiray fududeynta amni darrada warka qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa looga digay dadka weli gacan saarka leh kooxda Al-Shabaab isagoo ku hanjabay Mahad Maxamed Salaad in shakhsiga u adeeca ama u fududeeya howlaha ammaanka ay tilaabo sharciga waafaqsan oo ka qaadi doono waxaa la qabtay ku dhawaad 10 qof oo siyaabo kala duwan loo macaamilayay kooxda Al-Shabaab hadda kadib waxaa tilaabo waafaqsan sharciga dalka laga qaadaya cid walba u tagta adeecda ama u adeegta kooxda Al-Shabaab agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daar ayaa kol hore u sheegay in agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad oo gacan saar leeyahay kooxda Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya aad isku hayso gacan saarka Mahad Maxamed Salaad iyo kooxda Al-Shabaab ayaa soo idlaaday kadib markii agaasimaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka loo magacaabay xubno badan oo looga shakiyay inay gacan saar leeyihiin kooxda Al-Shabaab ayaa siyaabo kala duwan loogu soo qabtay degmooyinka gobolka Banaadir waxaana hadda baaritaan ku wada hay'adda NISA sidaan xog hayso ku hayno waxaa gabi ahaan la fasaxay 10 qof oo la sheegay inay gacan saar lahayn kooxda Al-Shabaab balse qoraalka lagu daabacay Twitter-ka hay'adda NISA ayaa lagu sheegay in xilligan waxay ka dambeeya qofka ciidamada ay ku soo qabtaan inay gacan saar leeyihiin kooxda Al-Shabaab laga qaadayo tilaabo sharciga waafaqsan dowladii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu eedeeyay inay howlgab ku sameysay falalka amniga lagu sugayo laguna ciribtirayo kooxda Al-Shabaab 15 bishii May oo dalka doorasho ay ka dhacday guusha ee raacday Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wixii ka dambeeyay waxaa dalka ka xortay olole xoogan oo qabaylada Soomaaliyeed ay ku diidan yihiin kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ka badan ka dhisan Soomaaliya howlgallada ugu badan ayaa haatan ka socda Hiiraan iyo Galgaduud waxaana hadda soo xortay shacab isku urursanaya gobolada Baay iyo Boqol kuwaas oo qoryaha u qaatay inay xoreysaan deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan waa hagaag daawadayaal wararkeena kale waxaa ka mid ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa beeniyay warar lagu faafiyay baraha bulshada isla markaana looga soo horjeedo kacdoon ka dhanka ah Al-Shabaab kaasoo ah inay dowladdu hubeyso qabaa'ilo gaar ah qabaa'il Soomaaliyeed oo Xasan Sheekh Maxamuud hubsi ma jirto kaliya dowladdu waxay siisay rasaas macawislada dhaawacyadana waa la dhayaa ayuu yiri la taliyaha amniga qaranka ee Xasan Sheekh Maxamuud ee dhanka amniga la taliyaha amniga qaranka Xasan Sheekh Maxamuud Xuseen Macalin ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay haatan hogaaminayso dagaalka dhanka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dhexe Soomaaliya beeluhuna ay gacan siinayaan dowladda hadalada Xuseen Macalin ayaa yimid kadib markii taageerayaasha madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay bilaabeen in dacyad noocaas ay ku faafiyaan baraha bulshada sida beelaha la isku horkeeno wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa hore uga digay in Al-Shabaab isku daydo
in dagaalku u rogto beel duulaan ku ah beel kale si iskaga horkeento beelaha macadda sababta taageerayaasha farmaajo carqaladeynayaan dagaalka dhanka al-shabaab ase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inay ka cabsi qabaan in haddii dagaalku uu guuleysto shacabka ay arki doonaan sida farmaajo 5 sano uga khasaariyay Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi ayaa shalay sheegay in kooxaha shaki ka qaba howlgalka ee dacaayadaha wada ay kala yihiin. Kooxda koowaad waa al-shabaab ayuu yiri isagoo sheegay in Cali Dheere afhayeenka al-shabaab oo dadka calooshooda ka qarxiyay uu masaajid ku weeraray markii hubka qaateen oo ku tilmaamay Mooryaan. Kooxda labaad waa kuwa ku fashilmay nidaamkii hore ee farmaajo waa al-shabaab oo ogolaadeen dadkeeda canshuur ka qaado. Kooxda saddexaad waa koox deegaankooda nabad yahay ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. waa hagaag daawadayaal wararkeena kale waxaa ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan teedhada Afisoni waxaa maanta ka furmay shir heerkiisu sareeyo oo u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka kaasoo looga adeegsanayo abaaraha iyo amniga. Shirka xasaasiga ah ayaa waxaa daafuray ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac waxaana ka qayb galay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Soomaaliya madax ka socda hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale dhammaan dalalka deeq-bixiyaasha ay fadhigoodu yahay Muqdisho. Intiisa badan waxaa shirka diiradda lagu saaray gurmadka abaaraha iyo sidii loo caawin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha haatan ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka. Saalax Axmed Jaamac ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka ayaa markii hore ka qaybgalayaasha warbixin ka siiyay xaaladaha bini'aadantinimada Soomaaliya isagoo sidoo kale xubnaha beesha caalamka codsaday in ay qayb ka qaataan gurmadka. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Axmed Jaamac ayaa shaaca ka qaaday in deegaanada qaar ay ka jirto xaalado adag oo ka dhalatay go'doonka ay geliyeen kooxda al-shabaab waxay dadka tuulooyin ku nool ee ku soo rogeen tilaabooyin bahdil kuwaasoo ku qasbaya inay soo barakacaan. Dhankiisa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in xaaladda abaarta ay sii jiri doonto bilaha soo socota sida ay saadaashu muujinayso wuxuu ugu baaqay in si wadajir ah loogu istaago wax ka qabashada. Saadaasha hadda waxay muujinaysaa abaarta inay sii socon doonto bilooyinka soo aadan. Kaalmada caalamka ee aan hadda hayno kuma fidna tirada dadka Soomaaliyeed ee saameyntu gaartay ayuu khudbadiisa ku yiri ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxaa haatan ka taagan xaalado daran oo isbiirsaday sida amniga gaar ahaan dagaalka al-shabaab iyo abaaraha iyadoo xilligan laga digayo macaluul ku dhacda dalka. Guud ahaan daawadayaal halkaas ku soo gabagabeeyna wararka Wadajir News nabad.